runtii reer buur rakaba ciidanka taana deeri ciidanka la ku sugan waana ka filadaan ciidamo cusub ayaa waxay ku biireen ciidamadii hore ugu tirsanaa kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa ay sidoo kale dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay ka wadaan inta u dhaxaysa buur rakaba iyo sidoo kale magaalada baydhabo oo ka tirsan gobolka baay saraakiishoodii waxay la hadleen warbaahinta gurmadyo kala duwan ayayna sidoo kale ay heleen sida ay markaasi ku dhawaaqeen waxaynu dila wadaagi doonaa macluumaadka xogaha dheeraadka iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira xaaladda deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed iyo hanjabaadda ka imaanayso ciidamadii daacad u ahaa madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdagareen marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 17 bisha shanaad ee May ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno ciidamo kale oo cusub oo ka tirsan kuwii daraawiisha dowlad goboleedka koonfur galbeed isla markaana daacad u ahaa madaxweynaha xilka awoodda looga ceyriyay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdagareen ayaa waxa ay markaasi heleen gurmadyo kala duwan oo la xiriira ciidamada dadka deegaanka saraakiishan ayaana si toos ah waxay u tilmaameen in ay markaasi ay yihiin kuwa u halgamaya dadkooda iyo sidoo kale deegaankooda waxay intaas ay ku dareen inay dagaalami doonaan isla markaana ay iska difaaci doonaan dhaqdhaqaaq kasto iyo sidoo kale dagaal kasto kaga yimaada dhinaca ciidamada markaasi ku sugan magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed afhayeenkii madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed oo isaga markaasi sidoo kalena ku sugan dhulka hawdka waxa uu horay markaasi hanjabaado kala duwan ugu diray ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyaga markaasi ku sugan gudaha magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxa uu tilmaamay in awoodda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed uu siinayo in dadkooda iyo sidoo kale deegaankooda ay difaacaan in ay sidoo kale ay markaasi ay ka hortagaan cid kasta oo caqabad ku ah xasiloonida iyo sidoo kale nabadgelyada deegaanka waxa sidoo kale uu tilmaamay in haatan markaasi u diyaarsan yihiin wada kasta oo markaasi lagu horumarinayo nabadgelyada xasiloonida iyo sidoo kale horumarka reer koonfur galbeed isagoona sidoo kale intaas ku daray in xilligan markaasi ay jiraan ciidamo kala duwan oo iyaga markaasi heegan ku jira sida uu tilmaamay durbabo waxa sidoo kale in la dareemi karaa in gurmadyada ka imaanaya dhinaca iyo markaasi dhulka hawdka ay ku yaalo deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed isla markaana ku biirayo ciidamada daacad u ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdagareen ayaa iyagana waxa sidoo kale ka go'an dhaqdhaqaaq guud iyo sidoo kale inay markaasi ay bilaabaan dagaal ay markaasi ay la galaan cid kasto isku daydo in ay markaasi ay ka hor imaato xasiloonida nabadgelyada iyo sidoo kale horumarka deegaanada maamul goboleedka ee koonfur galbeed saraakiisha qaarkood oo la hadlay warbaahinta waxay intaas ay ku dareen in durbaba ay markaasi ay bilaabatay dhaqdhaqaaq guud abaabulka iyo sidoo kale dagaal guud oo lala galayo cid kasto isku daydo in ay markaasi ay ka shaqeyso nabadgelyo darro iyo sidoo kale xasilooni darro in ay markaasi la dagaalami doonaan ciidamada markaasi maanta marka la soo bandhigayaana sidoo kale durbaba waxay markaasi ay walaa xoogan ay ka muujinayaan dadka deegaanka in ay markaasi ay weerar ku qaadaan magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed baydhabo laba arrin boo ay ka taagan tahay midda koowaad waxay tahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay isku dayayso in ay markaasi difaacato magaaladaasi isla markaana ciidamadan ku soo wajahan ay ka hortagto iyo midda labaad waa in ay dadka shacabka iyagana ay markaasi cabsi xoogan ay qabaan oo la xiriira in mar kale dushooda lagu dul dagaalamo labadaas arrin ayaana sidoo kale taagan midda kale taagan iyadana waxay sidoo kale tahay in doorashadii aysan wili dhicin isla markaana kursiga madaxtinimo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed uu wili uu taagan yahay oo aanan marnaba markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo markaasi musharax gaar ay wadato laakiin haddana doorashadii lama qabanin iyadoo aanan doorashadii la qabanin ayaana sidoo kale waxaa suuragal ah in ay imaan karto in dagaal uu ka dhaco gudaha magaalada baydhabo ee maamul goboleedka ee koonfur galbeed saraakiishii maanta la soo bandhigay isla markaana la hadlay warbaahinta waxay si guud faahfaahinno ay ugu bixiyeen dhulka hawdka ay ku jiraan dhaqdhaqaaq ay markaasi sameynayaan iyo sidoo kale in ay markaasi weerar ay ku yihiin magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed walaal anjaaha dhawaaw howlgalkii dib u xureenta manada saabilaartuha ka dhawaaw waliba kamid ah degmadii lamaad oo maana gurmud hadiraasa iyo kamid ah degmadii koohoreyti weejid iyo hayti
degmadii la maadlo degmada buur rakabo runtii reer buur rakaba ciidanka taala deeri ciidan kale ku sugaan waana ka filadaan wali arday raj weeyna in mayl raayis ciidamada mayl raayis dib u horeen salbilaar tu geebti oo xoog badan degmadaas ku koy doonaan maadaama degmada mayl raayis walbadan ana tu warbaahintan sheegana noo dhahay kullay wali maleeyay in mayl raayis ka beeri doonaan howlgalka insha Allah ciidankan koray oo walaalkaan mayl raayis kabtan anje hogaamiyo ana deeri wali diyaarsan ciidamadan iyo ciidamo kale oo goobo kale ku suganba anti mayl raayis diidan wali awteedan hadiidan antiyo diidan wali awteedan hadiidan ujeedadaan iyo inay hadafkaana ma reer goona ama qabiil goona intii uu beegsan wali mana arday beegsan doogna fikrado oo mana gurxan oo mayl raayis ka salaysan istirnaab iyo fagoga ka salaysan mana arday beegsan doogna dadka kale mana reer koonfur galbeed dhammaan reer koonfur galbeed anoo shal qaadan meel kasta iyo roogan wali mana ka kalsoonadaan ciidamadiyo wali mayl raayis kalsooni buuxda ka qabo doonaan hadii ilaahay ini mana beegsi goone ama reer goone la beegsan doon reer goone la beegsan doon taas kalsooni ka qabo insha Allah la kiyaaba qofka bani aadanka dimada shaqo mana soo ka jar huluwada isoo wal suubi fada intii wal ka halaaw biidnillaahi wali halaawina mana arday wal sahadoon wali sahanayna kulli intii ninka mahad naga doontan arday rajayana ma dhiyo doonta ini mana qaldaad arday ku dhii insha Allah si habsamala oo mayl raayis qurux badan oo arday wada tashi helnama walaalnimo ka salaysan howlgalkan socdo doona wali mana anta arday kala baag goona ka jeedi faday dhammaan degmooyinka oo reer koonfur galbeed sideed gobol dadka degaayaan ama dadka abtirsadayaan ciidankin howlgalkan shaqadan mana howlgalkin wali lana kooyo howlgalka ka beere mayl raayis madaxweynaha oo waqtigii dhamaaday oo tumushan dhamaatay ay marba mayl raayis jidko garjije asiyan ka falanay insha Allah ta'ala maskanta fiiwa tali doonto reer koonfur galbeed ayo ka talada doonan wala la waliyo ka taladan la wala doon wal goona iyo lan goona wada madii doonan oo masin liini wal Allah wal artel wala erne wala sang masin ran ayaha koonfur galbeed intina nisukooy la ka talada hadii mana dalku gudaaji dad roogan iyo hadii dalku dibidis rooganba taladaas iyo halgankaas noo wada dhahayta insha Allah ilaahay idin jiwaana ka miri dhali doogna waana ku guulayso doona shaka manoo ka jar guulaneen moogota geed gaaban iyo geed dheer meelin kornob toona ka daali doona may kale mana arday farfaday dawladaha caalamka oo mayl raayis daneeyaan Soomaali dawladnimada iyo ama dib u kabshada mana daneeyaan oo beenta iyo barbaqaandada waxyaabo aan jarna siin sheegahay oo nimankaasi argagixisu qaabkaasu kida wakada leh walba ma ka jar walaasay wal mayl raayis dawladnimada ama arday system ka arday federalism ka dagaalamayo widaadkaasi mana arday wareerka mana wali kalena mayl raayis hakanagway mayl raayis Soomaali geekata waqti oo wareer iyo waqti mayl raayis waali ku hukuma marogda Soomaalida fiyaw ama maskanta fiyaw ama dadka fiyaw talanga lana warkana taasa kooba hada wabillahi tawfiq salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh iyadan ma sidin dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadana hadii aynu dhankeeda eegno waxa ay diyaargarow xoogan ay ugu jirtaa in ay ka hortagto wada kasto iyo sidoo kale abaabul kasto oo iyagana markaasi ay ku doonayaan in ay ciidamada taabacsan madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen in ay kula wareegaan gudaha magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed arintan ayaana sidoo kale waxa lagu micneeyay bisana lagu tilmaamay in ay tahay mid kaliya oo iyada markaasi ay muujinayso in Lafdagareen ay ka go'an tahay in uu xajisto magaaladiisa in uu ka hortago dhaqdhaqaaq kasto iyo sidoo kale dagaal kasto oo kaga yimaada dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya halka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyadana ay markaasi ku dadaalayso in ay la dagaalanto cid kasto isku daydo in xasilooni darro ee markaasi ay ka shaqeyso afhayeenkii madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ugaas Xasan Cabdi Maxamed isaga waxa uu sidoo kale hore u tilmaamay misana ugu dhawaaqay in aysan marnaba dib u laaban doonin hadafkooda ujeedadooda iyo qorshahooda ugu weyn uu yahay
in ay dagaalamaan isla markaana iska difaacaan wax kasta oo kaga yimaada dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintan oo dhan ayaana sidoo kale waxay u muuqataa in baydhabo mar kale la isku farsaari doono isla markaana dagaal kale uu ka dhici doono maadaama lafda garan uu gurmadyo kala duwan uu helayo isla markaana taageero uu ka helayo iyo garab istaag buuxan madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe arrintan dadka qaarkood waxa ay markaas ku micneeyaan in ay tahay mid kaliya oo muujinayso in isbedel dhab ah oo markaasi uu ka dhici karo koonfur galbeed waxaanay markaas mas'uuliyiintan ay ku celceliyaan in lagu soo duulay isla markaana deegaankoodii iyo dhulkoodii si qasab ah oo awood ah markaasi aan looga saaray haddaba dhaqdhaqaaqyada guud ee ka soconaya koonfur galbeed abaabulka ciidan iyo sidoo kale diyaar garowguba wararkeena dambe ayaan idinku wadaagi doonaa